Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka caalamka. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Israel oo duqeysay cisbitaal ku yaala Gaza. 20 qof ayaa halkaasi ku dhintay oo ay ku jiraan suxufiyiin ka tirsan warbaahinta Al Jazeera iyo sidoo kale Reuters. Moscow iyo Kiev oo isdhaafsaday xog ku saabsan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dhowaan la soo riday. Jarmalka oo codsaday damaanad amni oo lagu talagalay Ukraine iyo Israel oo xaqiijisay inay fulisay duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday koonfurta Lubnaan. Qodobada iyo qodobo kale oo dhammaystiran ayaad dhegeysan doontaan haddii Allah awoodda laga helo. Fadlan subscribe inoo saar channelkan, like garee muuqaalkan, la wadaaga asxaabtaada. Waa maalinimo Isniina, taariikhdu maanta waxay ku beegan tahay 25 bisha 8 ee Agoosto sanada 2025. Anigoo Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf ayaana soo jeedin doona warbixinadan. aynu ku bilownay ciidanka Israel ayaa qaatay mas'uuliyadda weerarkii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ka dhacay deegaanka Tabniin ee koonfurta Lubnaan oo aan horey uga soo warbixinay, iyagoo sheegay inay beegsanayaan dagaalyahanno ka tirsan Xisbullah. Waxay sheegeen bartilmaameedku ku howlanaa isku day lagu soo celinayo kaabayaasha ciidanka ee kooxda hubeysan ee Lubnaan. Militariga Israel ayaa maalin walba fulinayay duqeymo cirka oo ka dhacay guud ahaan Lubnaan, taasi oo ka hor imaanaysay heshiiskii xabad joojinta ee bishii November 2024 lagu gaaray Xisbullah, iyadoo Israel ay sidoo kale sii wado in qaybo ka mid ah koonfurta Lubnaan ay ciidamo ku daadiso. Wixii ku soo kordho warbixintaasi wararkayga dambe ayaad ku dhegeysan doontaan. 5 suxufi oo ku jiro sawir-qaadaha Al Jazeera Maxamed Salama ayaa ka mid ahaa 20 qofood oo lagu dilay weerar Israel ay ku qaaday cisbitaalka Nasir Medical Complex ee dhaca koonfurta Gaza, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza. Wasaaraddu waxay Isniintii sheegtay in dhibanayaasha lagu dilay dabaqa afaraad ee cisbitaalka kadib markii la qaaday weerar loo yaqaano double tap strike, halkaasi oo gantaalka koobaad uu dhacay kadibna dhowr ilbiriqsi kadib gantaal labaad lagu garaacay xilligii kooxaha gurmudku ay goobta yimaadeen. Qaar ka mid ah kuwii ku dhintay sidoo kale waxaa ka mid ahaa Xusaam Al-Masri oo ahaa sawir-qaade u shaqeynaya wakaaladda wararka Reuters, Maryam Abu Daqa oo u shaqeyn jirtay warbaahinno kala duwan oo ay ku jirto The Independent Arabic iyo wakaaladda Associated Press ee AB, iyo suxufiga Muaz Abu Taha, sida uu sheegay xafiiska warfaafinta dowladda Gaza. Suxufiga shanaad Ahmed Abu Casiis oo u shaqeynaya shabakadda Quds Feed Network iyo warbaahinno kale ayaa u geeriyooday dhaawacyadii soo gaaray, sida lagu sheegay bayaanka xafiiska warbaahinta. Reuters ayaa sheegtay in muuqaal toos oo cisbitaalka laga soo tabinayay kaasi oo gacanta ku hayay kaameramaanka Xusaam Al-Masri oo si lama filaan ah u damay xilligii gantaalka koobaad uu dhacayay. Al Jazeera ayaa cambaareysay weerarkan iyagoo ku tilmaamay ujeeddo cad oo lagu beegsanayo qaar ka mid ah warbaahinada, gaar ahaan wariyaasha ka howlgelaya halkaasi. Salama waxa uu sanadkii hore guursaday suxufiyad kale oo lagu magacaabo ama Falastiini ah oo la yiraahdo Hala Asfour, iyadoo dagaalka xasuuqa halkaasi uu ka socday. Dhinaca kale, Abu Daqa waxa ay ka tagtay wiilkeeda 12 sano jirka, kaasi oo laga daadguriyay Gaza goor hore intii uu dagaalka socday, sida uu sheegay tafatiraha AB. Dilalka suxufiyiinta waxay yimaadeen wax yar 2 toddobaad kadib markii suxufiga caanka Al Jazeera Anas Al-Sharif lagu dilay isaga iyo 4 asxaabtiisa horta cisbitaalka Al-Shifa ee magaalada Gaza. Israel waxay sheegtay inay beegsatay Anas oo noqday codka Gaza sabab la xiriirta tabintiisa ballaaran ee ka imaanaysay marinka Gaza oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo qofood. Weerarkan waxa uu tirada suxufiyiinta Falastiiniyiinta ee lagu dilay Gaza tan iyo 7 Oktoobar 2023 gaarsiiyay ugu yaraan 273, sida uu sheegay ama sida lagu sheegay tirakoobka Al Jazeera. Marka laga reebo 4 suxufi ee la dilay, Xatiim Khalid oo sawir-qaade u shaqeynaya Reuters iyo sidoo kale ku dhaawacmay weerarkan. Wakaaladdu waxay xaqiijisay Khalid in uu si weyn u diiwaangeliyay dagaalka Gaza isagoo oo Reuters u shaqeynaya. Israel waxay soo saartay bayaan ku sheegaysa inay qaaday weerar ka dhacay aagga isbitaalka Nasir, balse aan la sharaxin ujeedada bartilmaameedka weerarkan. Bayaankan oo gaaban oo lagu daabacay baraha bulshada ee ciidanka iyo ku andacoonayaan ciidanka Israel aanay suxufiyiinta ula beegsan si gaar ah. Isbitaallo badan ayaa lagu dhuftay ama lagu weeraray guud ahaan marinka Gaza tan iyo markii dagaalku uu bilowday, iyadoo Israel ay ku andacoonayso in dagaalyahanada ay ku howlanayeen ama ay ku howlgalayaan gudaha xarumaha caafimaadka, balse aan wax caddayn ah la soo bandhigin. Sheegashada Israel weligeed looma helin wax maraga
Israel waxaa lagu eedeeyay xadgudubyo baahsan muddada 22 bilood ee dagaalkan ka dhanka Gaza, kaasi oo lagu diray in ka badan 62,000 oo qofood badankood ay yihiin haween iyo carruur. Ra'iisul Wasaare Netanyahu iyo wasiirkii hore ee difaaca Yoav Gallant waxaa maxkamadda dambiyada dagaalada adduunka ee ICC ay u jartay amar qabasho ah iyagoo lagu eedeeyay dambiyo dagaal. Suuriya waxay cambaareysay faragelin militari oo cusub oo Israel ay ka fulisay miyiga koonfur galbeed ee Dimashq, meel ka baxsan caasimadda, iyagoo ku tilmaamay hanjabaad culus oo ka dhan ah nabadda gobolka kadib wadahadallo ay labada dhinac dhowaan ku yeesheen magaalada Paris si loo dejiyo xiisadda koonfurta Suuriya. Wasiirka arrimaha dibadda Suuriya Asad al-Shaybaani ayaa Isniintii ku eedeeyay Israel inay jebisay heshiiskii kala qaadista ee 1974 iyagoo dhisaya xarumo sirdoon iyo saldhigyo ciidan meelaha markaasi aan loogu talagelin in militariga ay galaan si ay u horumariyaan qorshayaashooda la xidhiidha ballaarinta iyo kala qaybinta. Al-Shaybaani waxa uu hadalkiisa ku sheegay kulan degdeg ah oo ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee ururka iskaashiga Islaamiga, kaasi oo looga hadlayay dagaalka xasuuqa Israel ee ka wada marinka Gaza. Tallaabada militari ee ugu dambeysay Israel ay ku qaaday Suuriya ayaa timid kadib dagaalo dhiig badan oo ku daatay oo ka dhacay gobolka Suwayda oo ay ku badan yihiin dadka Duruushta, halkaasi oo toddobaado dagaalo qabiil bishii Luulyo ay ku dileen in ka badan 1,400 oo qofood ka hor intaan xabad joojin lagu joojinin dhiigga daadanaya. Israel ayaa weerar ku qaaday ciidamada Suuriya waxayna sidoo kale duqeysay bartamaha caasimadda Dimashq iyadoo ku marmarsoonayso inay difaacayso dadka Duruushta. Al-Shara oo noqonaya hogaamiye ugu horeeyay ee Suuriya ee ka khudbeeya shirka golaha ammaanka ee UNGA. Dhanka kale waxaa lagu dhawaaqay in madaxweynaha ku-meel gaarka ee Suuriya Ahmed al-Shara oo khudbadan markaasi uu ku jeedin doono kulanka guud ee qaramada midoobay bisha September, isagoo noqonaya hogaamiye ugu horeeyay ee Suuriya ee sidaas sameeya 10 sano gudahood xilli dalkaasi uu isku dayayo inuu dib u dhiso kuna soo laabto bulshada caalamka kadib 14 sano oo dagaalo sokeeyay iyo sidoo kale ka qarinta hogaamiyihii muddada dheer talinaya ee Bashar al-Assad. Intii in ka badan markaasi 50 sano ay talada hayeen qoyska al-Assad, ma jiro Xafiis al-Assad ama wiilkiisa Bashar al-Assad weligood khudbad ma ayna ka jeedinin kulanka sanadlaha ee madaxda caalamka ee ka dhaco magaalada New York ee dalka Mareykanka. Madaxweynahan cusub ee Suuriya al-Shara ayaa noqon doona madaxweynihii ugu horeeyay ee Suuriyaan ah ee ka hadla qaramada midoobay tan iyo madaxweynihii hore Nasruddin al-Taasi 1967 iyo madaxweynihii ugu horeeyay Suuriya ee ka qayb gala usbuuca heerka sare ee golaha guud oo la qorsheeyay 22 ilaa 30 bisha September, sida uu sheegay sarkaal Suuriyaan oo la hadlayay wakaaladda wararka AFP. Al-Shara oo talada la wareegay bishii December kadib markii uu hogaaminayay kacdoonkii degdega ee Damascus lagu qaaday, kaasi oo markaasi riday ama awoodda xukunka looga tuuray Bashar al-Assad, ayaa weli ku jira cunaqabateyn iyo xayiraado safar oo qaramada midoobay ay ku soo rogtay. Waa inuu dalbadaa ogolaansho safar kasta oo caalami ah. Bishii Abriil, al-Sabaini ayaa markii ugu horeysay khudbad ka jeediyay qaramada midoobay, waxaana xarunta New York uu ka tagay calanka cusub ee dalkaasi uu ka taagay. Taniya markii talada ay la wareegeen hoggaanka cusub ee Suuriya waxa uu helay taageero gobolka iyo caalamka oo dhan, labada diblomaasiyadeed iyo dhaqaaleed, taasi oo suuragelisay wadooyin dhaqaale oo muhiim ah si dalka burbursan dib loogu dhiso isla markaana cagihiisa uu dib ugu istaago. Dimashq bishan waxay saxiixday 12 heshiis oo qiimahoodu dhan yahay 14 bilyan oo ay ku jiraan heshiis $4 bilyan oo lala galay shirkadda UCC Holding ee Qatar si ay u dhisto garoon diyaaradeed oo cusub, iyo heshiis kale oo 2 bilyan oo lala galay hay'adda maalgashiga qaranka ee Imaaraadka Carabta si ay u dhisto metro cusub oo ka shaqeeya ama gawaari cusub ama jid tareen oo cusub oo ka shaqeeya halkaasi. Inta ayaan kusoo gabagabeynaya wararkii ugu dambeeyay caalamka. Wixii kusoo kordho wararkayga dambe ayaad ku maqli doontaan. Fadlan subscribe inoo saara channelkan, like gareeya, la wadaaga asxaabtiina muuqaalkan.